يا دينتو هذا إنه تاجن تاي وطن كالصوماليا أو دن بيك تاجن تاي وحلا صينية يعني يريه دينت هذه اللي نجح فيها دن كالصوماليا أو دن أيها تايدي سو قاري يا مركز خلاص واحد تاي واحد ويا مشاريع فربضن وضل خلا قول لسه سكول هذا يجعل خلا قول لسه وأنت كلام شيء سكترس خلا قول لسه productive سكترس خلا قول لسه يا هي ده وحصوصات يا agriculture كمية bio كمية education كمية organize يا social sector لقول لسه أياك صباحي مركا أريد مركا سيفي عن أيها المسلمين فيني وحكى صباحي مركا قرار كنا كصباحي مركا قرار كصباحي يوم بعد عيد والبا تصيا وحيالها ما قرنيسا أي كيد أهدين هي هذا العقد شركة يجي يا مالين هذا هدان هذه لكن أنا سوقي وشالي صباحي كازان سوقي ويب سايت كا IMF تنوع كل شيء وأنا دي صوت المريا مركا وأنا دي صوت المريا وحائليه أنجا أو استاف كي منها هي هذا العقد iyo saraakiisha dad Soomaalida ka socota waxyaalo badan baan isla la faquray leeyihiin hadaan isla la faquray waxaan isla gaadhnay in si wanaagsan Soomaalidu wax u soo qabatay waa koow ya arinta labaad waxay leeyihiin hadii aanu nahay hay'adda lacagta shaqaalihii ka socday saraakiishii ka socday waxaan soo dhaweynaynaa sida dalka Soomaaliyeed dawladdiisu ay uga soo shaqeeyeen waxyaalihii aan isku ogeyn sida uga soo shaqeeyeen ayaan soo dhaweynaynaa arinta saddexaad waxay leedahay Soomaalida iyo shaqadeeda iyo institutionskeedu si fiican bay u kobcayaan oo u korayaan ya taas oo mas'uul ka noqon doonta ama samayn doonta in wixii looga baahan yahay oo dhan ay qabtaan dhaqaaluhu soo kordhaya waxa kale oo ay yiraahdeen in muxuu ahaynaan dakhliga kordhayo in sidii loogu tala galay wax deynahoo la qaatay aanay jirin oo aan la isku ogeyni marka aad baanu taa ugu faraxsanahay bay waxa kale oo ay leeyihiin waxaan aad ugu faraxsanahay wasiirada ka socday dawlad goboleedyada qaybta ka federaalka oo iyaguna intay nagala soo qayb galeen aanu si wanaagsan iskula sheekaysanay oo dalka uga waranay waxaan damacsanay uga waranay iyaguna danahooda iyo arrimahooda waxay ka qabyaa nooga warameen ayaan iyadana aad uga faraxsanahay oo wax wanaagsani ay ka soo baxeen beelay waxay leeyihiin si deynta looga cafiyo diyaar baa loo yaadiyad u tahay deynta laga cafiyo Soomaalida laakiin waxa looga baahan yahay talaabada Soomaalida ku socoto inaanay dib uga soo noqon soo gaabin ay tobta ku socdaan haday sidaa ku socdaanna wax wanaagsan baa la isla gaari doonaa waxay leeyihiin kulanka yagii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan la kulanay wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Beyle wasiirka qorsheynta maalgelinta iyo kobaca dhaqaalaha mudane Jamaal Xasan governorka ama gudoomiyaha bangiga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi iyo dad kale oo badan oo dawladda ka socday maan la kulanay teamka aan la kulanay si fiican bay noogu qaadadhigeen noolana aan wax iskula garanay aadna waan ugu faraxsanahay waxay leeyihiin annaga laftayadu waxaan shirka ku soo casuunay bay leeyihiin IMF-tu ama hay'adda lacagtu shaqaale ka socday ama saraakiil ka socotay banka adduunka iyo hay'adda ururka Yurub midowga Yurub ka socday oo iyaguna qayb nagala qaatay shirarkii aan la lahayn dawladda Soomaaliyeed ama ha regionka ama ha ka federal government aad baan ugu faraxsanahay bay yiraahdeen shirka ay soo gabagabay bisha 14 intaas ayay ku soo gabagabeeyeen marka taasi waxay ku tilmaamaysaa inaan isku carabnahay annaga iyo hay'adda adduunka hay'adda isku carabnahay laana meel baan ka wada shaqeynaa meel baan ku wada soconaa now haddii ka warramo halkaynu ku soconaa marka imika waxaan ku soconaa waa tan idin sheegay bishan imika waa soo gabagabeynay intii la nooga baahnaa imtixaan kale oo weyn baa jiraya oo imtixaanka weyno haddii ay baydno bisha 12aad bilaabmaya shanteeda ilaa 12 oo isagana meel aan isla tagi doono ya meel isla tagi doono isla qaada dhigi doono finalization ama gabagabaha ya deen afis gabagabaha deen afis deegada haddaan waxaan wadna wadi weyno weligeed bas soo soconaysa
وحجرة دولة وضعهم دورية طبعا سنة شركات سووا ده أنك سو بحين مركز سو بحوايان دباطة يمرس أما تقال أنا ما دباطة هذا لا قدعو يا جيت كذا كهلا وصل وصهش يا أنا واحد ما تبغى امتحان كا لما قاعد دون هدي إلى هاي الأمر إيش الصوص عطيه لبيت الناس شنتي إلى لبيت كذا إن سووا يا وحن لكن وبعنا ددوينها الصومالية أنا بالك وين وهاي إنه يطلع كان دسي يا عشرة بحياة يا بايع مشتركة تذكر كاي أكو هؤلاء دل كانوا وحلا لقطه إن أرنتها سنة ولا وضع أرنتها سنة ساو صعبته دل كاني وسما تبحي فرط تساوي وسما تبحي هذه سيدا لو سعوه قوم بربري قانون تربية عينه دباتوين أيام مركاينا وصعطة إلى هاي دباتوين كاينا غير عليه مركاين بحنك هو تكاوي حطيت تاسد عضو وطاني ذي شيء إيش لبعض دورية من كذا يا واحد لقيت دونا فردي لو رأي decision point أما قرارك قاعد شذا وأن قاعد شذا كما تبينها الدين أفسك الصومالية شر لا يلعب لقيت دونا هذه أنت كور رئيس تدفر بدن با وحيالك كهولنا إنه كنا كهولنا هاي دين دتك الدين هاي نقول إن الدين تود يستكون في الهاين أي كهوليين لأن الدين ذلك اللي يقوله هسيدي لو دافع لها إذا قلنا process بيجي يعني internal أما برلمان كود هجيان أما كونغرس كود هجيان أما الله حتى هسوا مالك هلا budget هجيان budget كود discussion مو بعين يجعل كود برلمان يا كونغرس اللي يصير ناس وكلا أو قرارنا يعني محل لوجي تانية يا مركا يجعل كود ذلك هسيكله واحد كلو يجرا واحد ويه رنت واحد هذا اللي شيء رنت واحد يعني رنت ولا سبحان الله maalintii halka aan nimi shirarkii ugu horeeyay adduunka la qabsanayay dadka intiisa badan inoo soo jeeday ya runtu aanka weeyaan qoraalladana waad ku arki doontaa adduunka hadda eegtaan ya January 2017 dadku inoo soo jeeday shaqada markaan bilaabay waxay ahayd March bay ahayd aakhirkii March bay ahayd bishii saddexaad يا لبا كوريا تطبيع طبعاً تفر بدن أو دولة سواء طبعاً الله كلهم وإمير مريين كنت نسلامي يا واجد ما تجوا الإمير مريين إيجو ده تجوا الإمير مريين مالا كان تجوا الإمير مريين لكن ما كان صورنا قناي عن IMF كي لفال قال وحي الله باهنا وعن قبنا ما أنت وحن بلان قاضي وحوي أدو كنا أكار كيسان إنترنت كنا كتاوان كرتان كنا أحسن كرتان qof aan maanta rag dad aan maanta diyaar u ahayn idil laga cafiyo jiraan dadkii markaa ugu adkaaba maanta ayaa ugu horeeyay inay la qabtaan wax dadkii maalinta ugu adkaa ya marka adduunyada dad wanaagsan baa jira oo doonaya dalku inuu noolaado oo soo baxo sababta loo doonayaana maxay tahay waxa weeye dalkani meel muhiim ah ku yaala ilaahay dhagay ku yaala khayraad buu leeyahay dal adduunyada kala la falgalay weeyaan dal nabadgelyadiisu adduunyada kale wax u taraysa weeyaan dhibaatadiisuna adduunyada kale wax yeelaysa weeyaan ya marka adduunka oo dhan bay dani ugu jirtaa neighbor Kenya Afrika dani ugu jirtaa in Soomaaliya degto dad wax qabsan kara weeyaan ya waxna dumin kara marka in dabka la dumiyo ya dalkana dal manaafacaad leh adduunyada wax ku soo biiriyo noqdo ayaa diyaar loo waday marka waxaan marka diyaar u nahay waxa weeye inaan arrintaas soo gabagabeeyo waxaan ku soo gunaanadayaa sheekadaydan joogidii Addis Ababa waxa kale oo noo suura galay oo IMF ka u suura galay qolada hay'adda lacagta in ay la kulmaan guddida budgetka miisaaniyadda iyo maaliyadda ee aqalka hoose maxaan u jeedaa National Assembly ya golaha shacabka inay la kulmaan oo ay iyagana uga warramo oo halka joogay oo u joogay arrinta la xiriira ya shuruucda la doonayo in baarlamaanka la soo mariyo labada aqalba la soo mariyo baarlamaanka la soo mariyo labada aqalba ayay halka ku qaadaan dhigayeen oo isugu wada yimaadeen baarlamaankeenii federaalka ahaa iyo baarlamaanadii kale isugu yimaadeen ya oo la doonayo in la turxaan bixiyo ya la turxaan bixiyo la isla turxaa ka qurux badan la isku yimi Addis Ababa anagoo dhinacan ku shiranayo wada xaflad ku shirayeen waxa la isla turxaan bixinay ya مشروع دخلي
revenue bill kala idhaaba la sharci gaas bal isla turaan bixinay ayagana IMF ta gabadhii u sareysay way u tagtay waan wada tagnay waxay u sharaxday faa'iidada deyn cafiska leeyahay oo sharaxay iyo waxa looga baahan yahay baarlamaanka labada ah inay sameeyaan si dalkan deynta looga cafiyo waxyaalaha ugu muhiimsan waxay tahay waxay ay carabka ku dhufatay hoosta ka xaqiiqay wuxuu ahaa in la ansixiyo sharciga isaga la ansixiyo bisha October ee soo socota koob iyo soddonkeeda inta qooraysa waqti kooban weeyaan bay tiri waxaan ka warwarsanahay in waqtigaas ku koobmo laakiin dad qaban karaya tiin arrintan ka shaqeysaan ayaa waxa kale oo noo suura galay wasiiradii maaliyadda ee dawladaha qaybta ka federaalka members ka xubnaha ka iyo gobolka Banaadir inay iyaguna halka yimaadeen oo ina sharfeen shirka ka soo qayb galeen hay'adda lacagta iyo World Bank ama banka adduunka iyo European Union intaasina way joogeen waxay nooga wada warrameen anagoo isku dhan horta gabadhii waxa ka warramay deyn cafiska iyo sida ay yani dhibaatada inagu hayso deyn cafiska iyo habka aan imika u socono iyo iyagu sida ay u arkaan sida ay noo arkaan sidaan soo shaqada u soo qabanay waxyaalaha challenges-ka ay u malaynayaan in haysta sida ay u doonayaan inay noo wada arkaan one country wadan kaliya inay noo arkaan sida ay u danaynayaan iyo faa'iidada ka soo socota haddaan intaan isku xidhnaan aan qolo waliba wixii looga baahnaa samayso faa'iidada dalkan ka soo gaaraysa oo aan groupna reebay groupna wax siinay dal ahaan ka soo galaysa ayaa uga warrameen waxaan aad uga mahad celinayaa wasiiradii ka soo qayb galay giddigood way ka soo wada qayb galeen shanta maamul goboleed dawlad goboleedyada iyo Banaadir regionka Banaadir intuba way ka soo qayb galeen intuba waxay muujiyeen arrin taariikhi oo Soomaalinimo arrin taariikhi oo Soomaalinimo ayay muujiyeen waxay yiraahdeen arrinta deyn cafiska way wada daba taagan wada garab taagan arrinta deynta inaga cafiyo diyaaruna wixii inooga baahan yahay baa diyaaruna federal system baan nahay waxyaalaha yare laga wada hadlayo annaga hoosta xaliileynayna rag noqdo annaga danaha iyaga xaliileynayna niman yow dhageysteeda IMF iyo World Bank iyo EU annaga xagga iyaga safkaas wada fadhina isku wada mid baan meel baan ku wada socon qoladii muxuu ahaa saddexdii guri ee meesha joogay World Bank wuxuu ka warramay aad bay ugu farxeen arrintan aad bay ugu farxeen wararna way ka soo saareen oo ku halkan ku qoran meel kale way ku qoran waxa kale waxay nooga warrameen markaa faa'iidooyinka ay taasi keenayso ayay ka warrameen World Bank wuxuu ka warramay IMF ku maalinta ay tiraahdo waad fiicantiin ee shirka la galo ee deynta in la idinka cafiyo lagu dhawaaqo annaga shaqadaydu waxa weeyaan inaan wadanka lacag soo geliyo shaqadaydu waa in lacag soo geliyo waana markaas ka shaqeynaa ilaa ay sida loo soo geliyo iyaduna saas leeg bay tiri marka shirarkaasi really aan doonayay in idinka warramo wax kale halkan miyaan ku hayaa talo waxaan markaa ku soo gabagabeynaa shirarkaasi si fiican bay u soo gabagaboobeen hadday si fiican u soo gabagaboobeenna wixii horeba la inooga filayeen aan fulin weynay ma fulin wixii hore la inooga filayay ee aan fulin weynay ee aan ka seexanay ee aan dagaal ka xiganay iyo dhibaato iyo burbur iyo qaxooti ka xiganay ayaan maanta fulinay maanta waa la inaaminayaa runtu waxa toonidii sheegaya maalin walba madaxda Soomaaliyeed maanta shirar baa looga baahay loogu yeedhaa oo la shirka ka soo qayb gala ka soo qayb gala arrimaha fragility-ga la yiraahdo ku takhasusnayba sidaad uga soo baxdeen si aad diinta u cafineysaan sidaad u socotaan kale oo ka hadla baa la yiraahdo oo inta runtu isla weey waxaan balbalaarinay oo burburaya ma aha internet ka kala ka aqriya mana burburi karo mana balbalaarin karo waa run weey waxaan kula marka inaan marka aad arrinta ugu farxana weeye arrinta inaan saa u wadna weeye cashuurta dadka bixiyo waad mahadsantihiin kuwii wax ku dhiman yihiin oo walaalayaal oo bixiya annagana mas'uuliyadeedu waxa weeyaan inaad na tirsataan oo aan qalbi furan iyo calool fiyo idinku warrano wax waliba sidii ogaataan